ugu dambeyn waxa hoosta laga xariiqay islaantii dad qalatada ahayd qaabkii loo sii daan lahaa maxaa cadeen u ah in arintaas ay jirto ayaad isweydiinaysaa Soomaa muuqaalkan kugu la wadaagayay soo dhaw Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waadi salaamaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida ka joogtaan waa walaalkin Cabdullaahi Macal Xuseen waa rajaynaya anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigan uu mar kale dib inoo kulansiiyay isagay mahadaasi oo idin la sugnaatay inta dhiban Allah ka dulqaado inta isugu toosantaana Allah u barakeeyo nabigeena kaleey salatu wasalaamna aan ku wada salino channelkayga hadda ku cusub tahay ha iga ilaawin inaad subscribe saarto muuqaalka noo like gareyso wixii tali tusaale qaybta comment-ga nagu la wadaagto noo share gareyso oo dad badan oo Soomaaliyeed muuqaalka aad nagu la wadaagto aad baa u mahadsantahay walaalayaal bari oo isniina haddii rabbi nafci nagu simo waa maalintii lagu balansanaa ama loo asteeyay in uu dhaco fadhigii labaad ee maxkamadii mujrimadii gabadha yarta ee masaakiinta nooca aad aragteen u dhibaataysay oo ilaa ay hadeertaan Sabriin meedkeedu uu talaajada ku jiro si markaas xuquuqdeedii loogu helo hadalka aad u dhageyso waxa la socotaan kal fadhigii maxkamadda gabagabadeeda ninkii garsoorka maxkamadda ahaa ee meesha fadhiyay hadalkiisa waxa kamid ahaa maadaama qareenadu qaarkood ay yiraahdeen si fiican uma aanan soo diyaar garoobin ee muddo dib hana loogu dhigo laakiin maalinta isniinta ay soo socota ayaan kiiskan dib ugu dhignay halkaas al-aaqil yafham al-ishara qof kasta oo wax garad ah oo maskaxdiisu fadhida waa uu dareemi karayaa garsooruhu waxa uu hadalka ka waday laakiin rabbi bay mahad u sugnaatay maanta ummadda Soomaaliyeed way soo wada jeedaan indhuhuna waxay hayaan Sabriin sidii xuquuq loogu heli lahaa taa maxkamaddu ha iska ilowdo yaa la isku ceebeen meesha waxa kale oo meesha timid in caruurtii yareereed ee 12 ciyaal ahayd ee islaantii dad qalatada ahayd ay dhashay xitaa meeshii laga qaxiyay oo meel kale loo wareejiyay oo ilmihii inta muuqaal laga soo duubay leeyahay hadla oo ilayhiin anaga waxaan cunno ma haysano waxaan cabno ma haysano waxaan ku noolaana ma haysano hooyadeen ayada aabi hooyano ahayd hooyadeen yaana laga dilin hana loo soo daayo waa la socotaa waxaas oo waxa soo abaabulaya dad doonaya sidii kiiskan loo maran habeen lahaa oo leeyahay meedka la aaso meedka la aaso tusaale yar baa idin siinaya meedka la aaso maxaa meedka meesha loogu hayaa tusaale yar baa idin siinaya meedka la aaso wanaagsantahay Lul Cabdicaziis oo aad ogtihiin muddada inta la eg ay ku jirtay talaajada si gabadhaas xuquuq loogu helo markii saddexdii maxkamadood ee isxigay dhamaantood isku wada raaceen in xukunku uu yahay dil toogasho ah si xuquuqda gabadhaas loo gudo ayaa Lul Cabdicaziis la aasay rabbi ha u naxariisto waa ogtihiin duugteeda waxa ka soo qayb galay oo khalqi rabbi abuuray ah maxkamadii maadaama isku wada raaceen in ninkaas dil toogasho lagu xukumo oo la dilo markii Lul la aasay kadib yaa isku soo laabtay aawe xagu maraya kiiskii wiilkii ma la dilay waa maya waa meelaha ugu dhowdhow ee dadka laga soo galo war meedkaan aasano wixii arina waan ka wada xaaltameynaa alagu leeyahay waayaha waa ka wada xaaltameynaa ma la aasay hada wa salaam waxba laga yaabaa maxkamaddu inay soo afjarantaba oo xiranto laakiin dadka Soomaalidu maanta inta way ka weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo dumarkii ilaydka ahaa ee gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo way is hortaageen waxa la doonayay in meedka si xooga inta lagu la baxo la aasto laakiin dumarkii Gaalkacyood way u istaageen ilaa maxkamaddu go'aanka ugu dambeeyay ay ka gaarto in gabadhaas meedkeeda aan la aasin ay talaajada ay ku jirto hoosta laga wada xariiq bari waa isniin waxaad ogaan doontaan marmarsiyada loo sameyn doono war qofku yiri qofkii anigu gacanteeda ku dhinto oo ana dilay dhibaatada inta la eeg ku dhacday aniga u geystay muuqaaladii iyo cadeyntii laga hayo wax loo warwareejiyo oo hadba meel loola fuulo oo hadba qareen loogu raadiyo garan maayo oo aanan ka ahayn in xuquuqdii Sabriin la duudsiyo daliil waxa looga dhiganayaa hadalka aad u dhageyso daliil maanta waxa laga dhiganayaa in la yiraahdo war ilma inta la eeg 12 ciyaal ah rajo laga ma dhigi kare sidii aan hawshan ku dhamaan lahayn dadkan ayaga isla si hoose intay u wada hadlaan sidii aan hawshan ku dhamaan lahayn falkeeda aan galno gabadhaana dambigeeda aan ku ogno dhowr sano xariga ha lagu xukumo gabadhii ha la sii daayo caruurteeda ha dhaqato maadaama 12 caruur ay leedahay oo markaasi aan caruurta la rajayn karin anu waxaan qabaaba
dembiga odaygii iyo islaanta kaliya ma ahan guriga oo dhan inuu ka wada jiray waayo waxaan wada arkaynay meedka marka la jiiday oo gaariga la saarayay odayga iyo islaantu kaliya meedka guriga ma aanay saarin caruurta oo dhan ba isugu tagto meedka wada jiiday meedka caruurta oo dhan ba intay geesaha ka qabteen meedka inta wada jiideen gaariga odayga habeenka markuu ku qaadayay wada saar marka guriga inta joogto dhan baa u baahan in xuquuqdii gabadha laga gudo idinku waxba ka hadlaysaan in ayadii la sii daayay ayaa ka hadlaysaane sidaa daraadeed marka waxaa nuxnuxay magaalada ku jirta in islaantaas dad qalatada ah ee gabadha masaakiinta ah ee waxba aan galabsan silaca u dishay in la sii daayo magaalada ay ku jirtaa dhigtaana waa wada hayn doontaan caddeyn iyo xaqiiqna waxay inoogu fillaan doontaa beri oo isniin ah oo 24 bisha hadda aanu ku jirnay November sanada 2025 kalfadhiga labaad ee maxkamadda magaalada Gaalkacyo beri waxa ka soo bixi doona waa iska ogtihiin waa iska dabeecad caadi ah iyo dhaqan ka jira waaye gudaha in la yiraahdo darajada koobaad baa la aaday 3 mar baa la wada fariistay 6 jeer baa la fariistay racfaantii baa la aaday maxay to 3 jeer baa la fariistay maxkamadii sare la aaday waa la iska daba warwareegay waxaas waa dhaqan jira waay laakiin maanta waxaa moodaa dadka Soomaalidu inay ka duwan yihiin sidii hore kiiskan hooyo walba oo Soomaaliyeed iyo aabba kasta oo Soomaaliyeed nabar buu ku noqday nabar Aisha Ilyas oo aad ogtihiin dhibaatada loo geystay wallahi marka la isbarbar dhigo Aisha Ilyas baa ka sahlanayd waayo Aisha inta la kufsaday baa la dilay laakiin tan waxay ahayd qof dhintay oo meed ah oo socda war qof inta la qaatay mindi la istaajiyay jirkeeda jug laga siiyay waa meed socdo waay silaca ay u dhimatay ayaa kaaga sii daran silaca ay u dhimatay bani aadan jirkiisa nooca loo galay oo haddana loo doodayo la leeyahay islaanta 12 caruur bay leedahay ilmaha yarirka ee hadda soo kacaya ee jiilka yarirka ee hooyada u baahan yaan caruurta rajo laga dhigin daliil looga dhiganayo anu waxaan qabaa caruurta laftirkooda mujrimiin kala waayo waxay ka qayb qaateen dhibaatadii loo geysanayay gabadha yarta ee masaakiinta ee islaanta dad qalatada iyo odaygaaba ay isku raaceen ay u geysanayeen bay ka qayb qaateen caruurta yarirka haddii laakiin sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan waxaad arki doontaan gabadhii oo la aasay iyo islaantii oo hawsheedii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkeeda guriga iyo reerkeedii dib u sii wadato aan soo wada duceeno xuquuqda gabadha yarta ah rabbigeen baan u weydiinaynaa inuu miiska u soo saare laakiin dadaalkanagana way ku xiran tahay sida haddeertaan looga wada dhiidhiyey ee shacab weynaha reer Gaalkacyood uga wada istaageen iyo Soomaalida kale ee dunida dacaladeeda ku nool ee uga dhiidhiyeen halkaa ha inoo ahaato balantaanadu aad baa u mahadsantiin intii igu soo biirtay way ku mahadsan yihiin intii igu cusubna waxaan leeyahay weli subscribe isaar muuqaalkana noo share gareeya oo meel noo gaarsiiya wixii taliya tusaale qaybta commentiga ayaad igula wadaagi doontaan qalbi to qalbi salaamu calaykum